Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan madaxweynaha dhawaan la doortay ee Mareykanka Joe Biden oo ku dhaqaaqay fal hadalhayn xoogan ka dhex abuuray gudaha shacabka Mareykanka. Balse intaan u gudagalin faahfaahinta, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, subscribe saaro channelka, gambaleelkana furo si aad u heshid wararka iyo macluumaadyada aan halkan ku soo bandhigno. Mahadsanid. Markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in uu yahay madaxweynaha 46aad ee Mareykanka, Joe Biden ayaa falowgareeyay gabar dharka xayeysiisa taasoo lagu magacaabo Chrissy Teigen. Falkan uu sameeyay madaxweyne Biden ayaa durbadiiba hadalhayn xoogan ka dhex abuuray gudaha shacabka Mareykanka. Ka hor inta uusan falowgareyn gabadhan, Twitterka madaxweyne Joe Biden waxa uu falowgareeyay oo kaliya 12 ruux oo u badan qoyskiisa iyo madaxdii hore ee Mareykanka. Twitterka madaxweyne Biden waxaa ku xiran in ka badan 26 milyan oo ruux. Sidoo kale gabadhan uu falowgareeyay waxaa ku xiran in ka badan 13 milyan. Gabadhan lagu magacaabo Chrissy Teigen waxaa iska dhalay aabe Norwegian ah iyo hooyo u dhalatay wadanka Thailand. Waa 35 sano jir lehna 3 caruur ah. Waxay u dhaxdaa oo ay isguursadeen sanadkii 2013. Fanaanka caanka ah ee lagu magacaabo John Legend. Daba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, waa maxay sababta uu madaxweyne Biden u falowgareeyay gabadhan isla markaasna ay u noqotay qofka 13aad ee uu falowgareeyo si shakhsi ah? Baaritaano ay sameysay saxaafadda Mareykanka ayaa lagu ogaaday in Chrissy uu dagaal xoogan kala dhaxeeyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Dagaalkooda ayaa inta badan waxa uu ka dhacay barta Twitterka, iyagoo isku weedaarsaday hadallo aad u kulkulul, taasoo mararka qaar gaarsiisay madaxweyne Trump in uu aflagaadeeyo gabadhan. Waxayna markii dambe sababtay in uu gebi ahaanba ka balowgareeyo Twitterkiisa. Trump ayaa tallaabadaas qaaday sanadkii 2017 markaasoo uu noqday madaxweynaha Mareykanka. Waxayna Chrissy ahayd ilaa iyo xilligaas ama muddo ku dhow 4 sano mid aan la socon warbixinada iyo wararka la soo dhigo Twitterka khaaska ah ee madaxweyne Trump. Haddaba markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in uu Joe Biden ku guuleystay madaxtinimada Mareykanka, durbadiiba Chrissy Teigen ayaa barteeda Twitterka ugu soo hambaliyeysay. Waxayna soo qortay sida tan: "Hello Biden, waxaan halkan ka xirnaa ama laga balowgareeyay muddo ku dhow 4 sano. Muku soo falowgareyn karaa?" Saacado kama soo wareegin waxaa durbadiiba soo falowgareeyay madaxweyne Joe Biden, weliba si shakhsi ah. Waxayna noqotay qofka 13aad ee uu falowgareeyo dhanka Twitterka. Sidoo kale Chrissy iyo saygeeda John Legend waxay nasiib u yeesheen in ay ka qayb galaan xafladii dhaarinta madaxweyne Joe Biden. Waxayna ka mid ahaayeen shakhsiyaadkii caanka ahaa iyo madaxdii lagu casuumay in ay ka qayb galaan xafladaas. Halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa warbixintii ku saabsaneyd madaxweyne Joe Biden oo falowgareeyay gabar dharka xayeysiisa. Haddaba intaan ka bixin muuqaalka, ma jiraan muwaadiniin Soomaaliyeed oo laga xayiray ama laga balowgareeyay baraha bulshada madaxda gaar ahaan sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha